dooranay shariif al-sayid muuse biixi cabdina waxaynu leenahay ilaahay ha ka dhigo kii nabad iyo nasiib wanaagsan iyo barwaaqo ku hogaamiya cimri dherer iyo caafimaad qaranka Somaliland allah ma hadle ahlu sharafka waan salaamay inspire group aad iyo aad baan iyagana u salaamaya waad mahadsantiin bismillaah umahadsan yahay ayadaha quraanka iyo ducooyinka ilaahay nagu anfaco haddaan nahay inspire group anagu waxaanu nahay urur dhexdhexaad ah dawlad iyo mucaarad midna ma taageero laakiin horumarka Somaliland wanaaga hilinka toosan intaas ayaanu ku shaqeynaa sidoo kale mas'uuliyiinta shacabku doorteen waxaanu jecelnahay in la xisaabtamo waxyaabaha ay ballan qaadeen ay fuliyaan sidoo kale waxyaabaha waajibkooda ah ay oofiyaan marka shirkan caawa waxaan ku soo dhaweynayaa qofka inoo martigelinaya ama program hostka caawa jaamac muuse jaamac oo badilaba ka taqaanaan arrimaha dhaqanka iyo Hargeysa Cultural Center jaamac baa caawa shirka inoo dhexdhexaadin doona waxaan u kala baxayaa isaga mikrofoonka martida shirka iyo idinka bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan arkaa in la joogaan marti aan Soomaaliga aan ku hadal marka waxaan aad ugu mahadnaqayaa isbaad gurbinay u diyaariyeen cid ag fadhido oo turjunta marka ay nama dhex fadhiyaan oo si dhagaxaantu nama dhex fadhiyaan waxaynu ku wada hadlayno way helayaan soo marka aad baan uga mahad celinaya organization ku inay arrinka eegaan anigu waxaan ahay waan idin marti gelinaya caawa aniga marti leeyahay macnaheedu waxa weeyaan mikrofoonka ayaan idin dhiibaya kulba cidii hadlaysa waxa aan idin xusuusinayaa qaabka uu yeelan doono sida loo soo diyaariyay barnaamijka qaabka uu yeelan doona wuxuu noqon doonaa waxa jiri doona keynote speakers nala hadlaya panelo ay kuwa dood ay inoo geli doonaan dadka loo soo doortay qaybaha kala duwan iyo inaynu soo gabagabayno wixii aynu halkan iska nidhi sidii loo weelayn lahaa just one word in English. I know that there are few people who don't speak and understand Somali language, but I am quite sure that you already know that you have some specially arranged translators close to you. So please feel free and talk to the person who is close to you and ask about what we are talking about. And in case you want to ask, you are free to ask in English language because of people will answer to you in English and then in Somali for the rest of the team. Inta kadib waxa ay tahay sharaf aniga caawa inaan safar baan ka soo galay oo diyaaradda markaan ka soo degay toos baan halkan u yimid inaan ka soo gaadhay habeen caynkan oo kala sababtuna waxa weeyaan marka ay dhalinyaradu ay hawl galaan hawsha midhaheedii la arko waxa kaliya aad oran kartaa waxa weeyaan aad u ducayso inaad tiraahdo xil weyn baad dhabarka u ridateen ilaahay ha idin la garab galo iyo inaad isgarab taagto oo aad muujiso kalgacalka iyo qiimaha ay geliyeen inay tahay quruxda ka soo baxday isugu hornimi laakiin isugu ma inaynu isu qurux badnaano darka oo kaliya waxaan isugu nimanaynu isu qurux badnaano inaynu aqliyan u xisaabtano waxaynu joognaa xilligaynu xisaabtamayno qarankan la xisaabtamaynay aynu ka bilaabeen nafaheena aynu qarankeena inagu oo qof kastaaba keligii koox kastaaba keligeed ay is xisaabinaysay isla xisaabtamaysay nafteeda marka caawa waxyaabaha inoo bilaabmaya waxa ka mid ah xisaabtanka ka hor hawl baa inoo taalo oo qof kastoo inaga mid u taale hawsha halkee baynu ka galeynaa adduunyada oo dhan waxa jirta cid u fikirka ururisa rogrogta dabadeedna meel dhigta cid maamulka ah oo qaada fikirka waxay ka qaadanayaan ku haga waayo mar kasta fikirka aqoonyahan ku soo saara maaha ka tooska ah in markaas loo baahan yahay waxa laga yaabaa inuu mar kale loo baahan yahay marka hoggaanku inuu eego oo arrin la budliyay ka fikiro oo wixii ka qaadanayay dalka ku hago iyo inta ku garab taagan inagoo kale inay tahay inay isgarab taagto ee waxa saxan in la soo budliyay ee ku dhaqaaqdo saddexdaas un bay adduunyada oo dhan u kala baxdaa marka saddexdeeniba caawa qaybo ka mid ah halkan fadhiya waxa sharaf ii ah oo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay in furaha hadalka caawa
hadal sharafeedka oo keliya maahe fariinta qarankan uu sido as a keynote speaker uu inala wadaago mudane cali khaliif galeyd. waxaa sharafii ah inaan mikrofoonka ku soo dhaweeyo oday ummadeed oo qarankani u baahan yahay kalgacal fara badan uu qabo isaguna kalgacal fara badan uu qaba fariinta uu caawa halkan sidaana ay raacayso uun sababta aynu halkan isugu nimi. marka keynote speakerku had iyo jeer wuxuu inoo hagaa halka aynu u kacayno. ma jireen qof kaga muhiimsan caawa in adar xali we know from. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أذبان وفرح سنة هنا كسوق يبقى عاوة شركا وحن شاء الله هنا كم هديو كبوغاديو inspire group in ay hawshan iyo ku soo abaabuleen isugu keena yeedheen waliya kalena magacyadooda waaba filayeen halka caawa inay joogi doonaan madaxweynihii hore kulley daahir yaalanena sawirkiisana ma arag isagoo nool ma arag caawan bay islahaa fursad bay ku noqonaysaa waa rajaynayaa inuu yimaado kulley jaamac haddaan weydiinayo war imise daqiiqadood baan haystaa wuxuu igu yidhi 10 daqiiqo kulley qofku hadduu macallin iyo professor iyo soo noqdo wuu iska hadal badan yahay waxaan ba isleeyahay 10 daqiiqo waa intaad soo kululaanayso laakiin fikirka halka ka muuqda dhallinyaradana waaba isaragnay shalayna waaba wada joognay run ahaantii magacan ay la baxeen midhayn af soomaali waa loo waayey inspire group kulley magacaad u fiicanna waa yahay fikirkanna ah xaggeyba ay noqonaysaa directionka ama waddada ay somaliland qaadanayso waxaan u malaynayaa cidda hadda marka laga hadla somaliland waa un maamulkan cusub ee yimi odayaasha dadkaa hore soomaalida ee gabya inkastuu gabaygu wixii uu ku yimi ciddoo loola jeeda aanan hadda waxba halkaga sheegayn laakiin nin axmed dirir la yidhaaho reer buuhoodla ah yaa gabay tiriyey wuxuu ahaa nin ambaday halkuu aaday waa ula ekoonayde qofku hadduuba ambado oo lumo meeshii u dhaqaaqaaba wuxuu isleeyahay waa sax waa lunsan yahay qofkaas waana fikir aada u fiican haddii qofku uuba ambanayo ama ummadii ay ambanayso bal cid fikir kaa haysa oo iskuba mashquulisa armaa wax khaldameen armaa directionkii ama waddadii la marayay laga lumay anigu somaliland protectorate waa ku dhashay waxbaan ku bartay wixii aan ahayba ee waxbarasho iyo wixii dambe aan sameeyeyna kulley somaliland protectorate waqtigii ingiriiska dowladdu markay timi un 2 sane hore hadda sir baa fakatay hadhaba leema weydiin doono waagaasu goormay haydiyo kaftan baa iga ahaatee aniga axmed siilaanyana waa run waa isla jaan qaadnay shaqada adna xogaa waaba naga horreysaan u malaynayaa laakiin laakiin kulley 64 buu axmed soo noqday ana 65 yaan maraykan ka soo noqday markaasaa la isku kaayo lifaaqay anigu dood kama qabo laakiin dadka u haysta inaanu classmates ya ahayn bal xoogaa dib ha loogu yaro noqdo ha la hubiyo ninkaasu waa nin aanu soo wada shaqaynay waa ninaan runtii u hayo kalgacayl iyo waajibka uu gutay mucaarad baanu inta muddo wada ahayn
haddaan reer waqooyi nahay iyo intii ay dhibaysay kacaankii soomaalida ee markaa sidii axmed diriir uu yidhi midheen ambaday oo waddadii ka lumay in badan baanu isweydiinay war mas-uuliyad guud baa jirta meeshan ma joogi karo maxkamad baaba laga yaabaa in laynagu xukumo in badan baanu isku hamunuunay muddo sanad iyo bara ciddii ka soo baxday ee go-aan kaa qaadatay aniga siilaanyo un baanu ahayn siilaanyo markaa in badanna waa isla soo marnay xukuumaddii waa isla ahayn civil service waa isla ahayn mucaarad waa isla noqonnay iskuullada iyo waxaa waa iga horreeyey laakiin nin mar walba ahaa model student ama ha noqdo iskuullada halka markuu kaga jiray ama markaa uu jaamacadda Manchester University tegay nin aad u caqli badan runtii waxna lagu soo gaadho aad u degan yaa ku aqaan nin kulley aan danihiisa gaarka uu leeyahay iyo kuwa ummadi leedahay aan iskaga khaldanayn baan waa arkay waa u ducaynayaa waana jeclahay reer Somaliland iyo wixii af Soomaali ku hadlaaba ninka qiimaha uu leeyahay in saa loogu ogaado waa jeclahay insha Allah warkayga haddaan hadda uu bilaawdo anigu saddex waxba waa fari lahaa maamulkan cusub horta arrinta ugu horeysa waa arrinta nabadda dadku hadday nabad haystaan iyakaa sida aboorka isaga shaqaysan kara Somaliland hadday wax noqotay waxa ugu weyn ee qabsoomay ummadda dhulkan ku nool baa mas'uul ka ah siyaalo mujtamacanu uusan weli u bislayn dimuqraadiyadan iyo horumarka iyo laakiin arrinta nabadda waa la isku yaacay capacity dadkan oo ay ku qiimeeyaan nabadda runtii waa ku bogaadinayaa waa adkaynayaa hoostana waa ka xariiqayaa maamulkan cusub ee yimi arrintan nabadda in uu mar walba mudnaanta koowaad siiyo waxaana qabaa dimuqraadiyadda uun maaha xisbibaa organized oo leadership fiican haysto oo doorashada helay haddaan mucaarad fiicani jirin haddaan mucaaradka laftiisu uusan ogolaan wixii ka soo baxay meesha dimuqraadiyad jiraysaa ma jirto qodobka aan anigu markaa odhanayaa waxa weeye madaxweynaha cusub iyo maamulku dhisi doonaa mucaaradka labada xisbi ee mucaaradka ahaa inuu geed dheer iyo mid gaabanba u fuulo sida ay arrintaasu ayan u biiqbiiqin xitaa haddii maamulku uu gacan ka siinayo xisbiyadaasu inay jiraan in la tayeeyo inay leadership fiican hesho anigu waxaan qabaa inay mas-uuliyadda maamulka ay tahay mas-uuliyadda democratic leadershipka la rabaana kuma eka adiga iyo xisbigaaga ee waa mujtamacaasoo dhan iyo cidda matelaysa iyo cidda laga yaabo tartan inay kulaba galaan oo 5 sano ka bacdi laakiin waxay ku badinaysaa nabadda iyo axsaabtaa soo jira iyo cid mar walba loyal opposition inuu jiro oo habka lagu dhaqmayo iyo shuruucda taalla iyo habka duwaliga ee jira lagu dhaqmayo axsaabtu iyo leadershipkooda inay isla ogolaadaan kaas waa qodobka labaadna waa midnimo midnimadu waxaan u malaynayaa waliba meelaha anigu aan ka soo jeedo the Somaliland protectorate waa ahayn hadda anigu shirkii burcana waa joogay kii booramana waa joogay dadkii ugu horreeyay ee systemka maxamed siyaad barre ka hor yimina oo u arkayay marginalizationka ku dhacayay dadka reer waqooyiga anigu dee kuma faanayo laakiin anaaba gartay inayn aniga cali ahaan iyo inta aan ka soo jeeday Somaliland ahay inayan dhaqaynin
ismana haaraamayno waxaas ku yimaadeen marka la doono waxaynu raadsanaa meelo uun dusha lagaga habiyo wixii xumaaday oo dhan ay Soomaalidu wixii xun baxawaale waa markaynu qabiilada iyo wax walba saaro siyaalo badan bay u xulumeen midnimada Somaliland haddayan jirin oo waliba midnimadu haddayan ahayn qoliyaha goboladan dhexe ka baxsan ama bari ha noqoto ama galbeed ha noqoto waaba laga yaabaa qoliyaha reer barigu inay ku cadcadaayeen hadda shirka burcana waa joognay ka booramana waa joognay hadda wuxuun baa la qawaday waxyaalahay dadku u arkeen inayan anficin waana ka mid ahaa dadkay ugu muuqatay inayan Somaliland habka ay markaa wuxu wado inayan ahayn mid iyadana dhaqaya ummadda dhulka ku wada nool la dhaqaya midnimo oo waliba maamulku inuu iska xil saaro yayan u muuqan baarlamaanka iyo institutionska jira iyo shacabka dhulkan ku nool iyo dee intii majority-giisa ahayd waa haysaa midnimadu waxay ku jirtaa in loo dhan yahay oo lagu khudbeeyo maaha in loo dhan yahay oo dhabihi inay jirto anigu weli Somaliland ma ihi hadda waa Somaliland protectorate anu kama hadlayo anigu Somaliland baan ka hadlaya war anigu Somaliland ma ihi anigu waxaanan u ahayn waxaanu waa process aanu bilownay wada hadallo ilaa 2 sano noo socday waxa aanu qabnana man aanan qarinayn haddana ma qarinayo waxaan rabnaa haddii dadka bariga jira Sool iyo Sanaag iyo Cayn haddaad doontaan qabiilba ka dhiga waxaan odhan lahaa waranaku cidna marti u noqon mayno cidna magan u noqon mayno meel dadku siman yahay oo sharci iyo dastuur iyo kala dambayna ay jirto waray meeshan haddaan rule of law jirin ummaduna ayan sinayn fardigu xuquuqdu leeyahay group markaa iswata sidii doonayaan baa isu wateen oo professional ama groups ama voluntary organizations ee dimuqraadiyaddu u baahan tahay haddayan jirin wala karis xuniyana wax kula Somaliland dan uguma jirto wax iyaguna waxaanu qarsanaynana maaha war wax jid ah oo iyadoo la miir qabo laga wada shaqeeyo gooyaha laga wada joogo la isla garto weeye waxaan rabnaa hadda intaanan power sharing iyo awood qaybsi aanan ka hadlin waray dastuurka Somaliland ay leedahay khaatumo mid baarlamaan ku jira mid xukuumadda ku jira in badan oo shacabka ka ah dastuurka waa qaybinay dad badan oo xafidsanna waa jiraan hadda articleskiisa marka laga hadlayo warda maxamed ibraahim cigaal ilaahay u naxariisto doorkii uu lahaa ee Somaliland uu runtii stabilizing force uu ku ahaa leadershipkii loo baahnaa markaana uu lahaa oo muujiyey waxaa ka mid ah dastuurkan waxaan u maqlaa meelahan ka maqlaa nin Suudaaniya dastuurka qoray war luqada maxamed ibraahim cigaal in kasta aan wada shaqayn language-kiisa waa aqaanaa siduu isu express gareyn kulli dastuurka ingiriisiga farti maxamed ibraahim cigaal buu iyo aniga ila muuqdaa in badan oo fiican oo inta dimuqraadiyad loo rabana waa ku taallaa war dastuurka ayaa safeguard garanaya yaa ilaalinaya si aan qof ugu amar ku taaglayn sidaan qabiil ugu amar ku taaglayn waa run haddii la eego xuquuqda qofku fardiga uu yeelanayo ama group yeelanayo war intii loo baahnaa oo dhan meesha waa ka muuqataa war waa run laakiin dee waxa dastuurka ku qoran iyo waxa practical political life ee waddanka jira ay tahayna waa laba arrimood hadda wuxuuna ma aha maxaa wala Rome was not built in one day Somalilandna maalin iyo 10 sano iyo 20 sano inta la rabo dhan kuma gaari karto
laakiin the spirit waxaan lagu wadayo ee lagu shaqaynayo war dad baan ognahay waana layga waroon yahay maxaabiisa oo jeelal ku jira oo qaar baaba jira maxkamadii sii daysay oo weli xidhan waray annaku dadka yaga af libaax ma gelinayno war waxa noo muuqda waxaanu rabnaa oo weliba groupkan inspire oo kale waliya dhalinyaro oo loo yiriso aan arkay dad badan hadda qaar for political purposes-na u leh dastuurka hal la furana waa jiraan annagu waxaan qabnaa oo heshiiskaanu caynaba axmed maxamed maxamuud ku kala saxeexanay waxa ku yaala waa cad yahay artikalka 3 awood qaybsi bay ka hadlaysaa laakiin waxa ka mudan war Somaliland laga hadlayaa maxay tahay maxaa u sharciya maxay dadkuna rabaan ciddii timaadaana ay ugu adeegayaan oo ay ugu noqonayaan ay ku hogaaminayaan la dabayaanan ku dheeraanay kullay waxaan rabaa war wixii Somaliland cusub oo la wada leeyahay oo danaheeda meel looga soo wada jeedo aaminsanow war noo heeliya oo heshiiska aanu gallay war processkii horta lagu wuxuu ansixin lahaa gudoomiye Saleebaan nawaaba maqlayay maalin dhoweyto wararuu sheegayay war processkii loo baahnaa in la mariyo waa jid laakiin waxa muhiima in meel looga soo wada jeesto war way xagala geel wax la qariyo gundi la galiyo ka weyn war wax gooniya waanu ka wadanaa ma jirto koow waxa ka ah war anigu meeshan waxba kama rabo Somaliland mansab aan ka rabaa ma jiro nin salaan ka dhiganaya warkana ma ihi waxaan arkaa ay dantu ku jirtaa war midnimada Soomaalidu waxay tiraa waxa umusha u dana ya ilmahana u dana waxaanu ka hadlaynaa waxaan isleenahay Somaliland bay u dantahay fariintaana aan u farayaa madaxweynaha cusub ee administration-ka imanaya qodobka 3 oo isagana aan ku arko dhalinyaradanu pamphlet-ka ay qaybinayeen war qodobkan oo hawl badanna u baahan waxyaalaha aad ii dhiba waxa kamid ah ummadan dareertay ee dhalinyarada ah ee intii wax baratay ee inta ugu firfircoon waagii horeba aagageena waxay ahaayeen labor exporting countries shaqaalaheena ilaa aniga oday siimaan ay dhalay oo reer Cardiff ahaan jiray haday siimaannimada hayna iskuulba ma galeen war in badan dadkeenu dibadaha ay aadi jireen markii hore Yurub bayba aadeen oo siimaanna iyo dibaday aadeen intii dambe ee shidaalka iyo dhalalkan aynu dariska nahay laga helay in badan oo tiro badan yaaba tagtay welina waxaan u baahanahay in aynu daynu inaku la nimaadno oo jaamacadaha dhowr jeer hadda waxaan maqlayay ilaa 5,000 oo arday jaamacadaha ka baxa bal haddana dhabtu waxa weeye employment opportunities muuqda oo jiraan ma ay jiraan dadka waxa ku kalifaya u tahriibayaan waa inay faa'iidaan oo waalidkoodii iyo carruura ay walaalayihiin ama kuwa ay dhaleen oo yaryar ay mustaqbal u sameeyaan war arrinta horumarka intaan wax kalaba la samayn waddankanu kulley warshadayn iyo beera aynu adduunka dhaqaalaheenu gaadho waxaynoo qarsoono mineralism moji waxa ugu badan waxa laga yaabaa inay service oriented noqoto waxa horumarka uu ku xidhnaanayo service muxuu ahaa industries kaasuna waxay adduunkii very competitive buu noqday human capital oo skillska loo baahan yahay appropriate skillska leh yaa loo baahan yahay horumarka iyo dhaqaalaha hore u marana waxa ugu weyn waa human resources kaas meesha dib in loogu noqdo war jaamacado badan oo magacyo yaab leh yaan meelahan ku arkaa cidda magacyada u xushama aqaan anigu laakiin magacyadoodana midhayn waxa wehelisa cid xitaa
curriculumka iyo waxa loo baahan yahay meesha lagu barayo midhayn cid badan oo ka warranta ma maqal jaamacna way ugu warwareegayay hadalka inaan soo koobu rabay war horumarka xaq dhaqaale hadday noqoto resource-ka ugu weyn ay dhulkan u leeyihiin waa dadkiisa war arrintaas sidii investment dhab ah loo gelin lahaa oo skillska loo baahan yahay skill setska dadka meesha ka soo baxaa ay leeyihiin waa inay mar walba noqdaan kuwa la jaan qaadi kara baahida taalle labor market ay u baahan tahay haddaynu u wada noqono dad uun social sciences guud iska barta waxaaba laga yaabaa dadkaas shaqana inayan helin frustration lagaba qaado horumarka loo baahanayaa waa ka leadershipka marka loo baahanayaa midhayn hadda waa ogaanay awal dee dawlad kasta oo yaroo dhalata laynun bay iska qaadi jirtay dawladun loo baahan yahay oo innagu waaba kaga darnay oo wax walba dawladdaa la wareegtay haddii uu private sectorku noqonayo cidda waxaan liid garaynaysaa dee laakiin mar walba kaasu wuxuu baahanayaa regulatory agencies inay jiraan war dawladda meelaha laga rabo nabad waa rabnaa dawlad hadda aynu ka rabno inay caafimaadkao dhan mas-uul ka noqoto inay NGO kala noqoto maaha laakiin dawlad u adeegi karta waxa dhaqaalahaas iyo ummadda horumarka gacanta ku haysa ee investorskii waxay u baahanayaan oo sharciya inuu jiro oo lagu kala baxo oo ayan noqon wasaarad muxuu ahaa shirkad hebel yaa la dhibayaa oo markaa cuqaal iyo salaadiin iyo loo raadiyo waninku hadduu lacag meeshan gelinayo dadka adduunkoo dhan baana hadda u tartamaya wixii lacagtaa haya war meeshan inuu sharci iyo kala dambayn iyo dad requisite skills kale inay jiraan iyo dad la shaqayna public private partnerships lagu wada shaqayn karo inay jiraan horumarkuna war inta loo wada yaacayo maamulka dadkanu inay employment opportunities iyo creation of wealth ama horumar inay ummaddan anigu aan qabaa ee horena magacyana waa jireenoo adduunkan af soomaaliga lagaga hadlo dadkan reer waqooyigu ay ku mudnaayeen oo ku dhaqnaayeen oo ilaa ama Ethiopia ilaa Kenya baayac mushtarka iyo nolosha iyo waxa jirtay furfuraanta iyo firfircoonida dadku ay la imanayeen waaba intaasoo skillskii loo baahnaana lagu daro facilitieski loo baahnaa ama infrastructurekii loo baahnaana loo helo maamulka markaa waxaan jeclaan lahaa sida aan sheegayay 1 nabad 2 midnimo iyo dadkoo lagu wada ururiyo 3 wixii horumar ee dhaqaalaha ee hore loo marayana focusku mar walba inuu saaraado dadka human resourceska dadku ee dhulka ku nool inay investmentka loo baahan yahay inay geliyaan dawladdaasuna ay noqoto dawlad si muxuu ahaa firfircoon suuqa la shaqaysa oo suuqaynu u baahanay keena qura maaha adduunka hadda waaba si wada furfuran yahay ilaa inta la gaari karo ee Ethiopia 100 milyan lagu sheegayo wareynayna inaku iska soo xidhan uga faa'iideysano yaan u baahanay leadershipka loo baahan yahayna leadership la shaqayn karta environmentka tartanka badani ka dhaxeeyo yaa loo baahan yahay institutionska kalmadaan hadda si fiican maalmahanba u maqlayo in la weeleeyo in la institutionalize gareeyo inay wixii noqdaan wax dadka imanaya ama dhulka ha jooga ama dibadda ha keenay wax gelinaya inay certain element of predictability ay taalo haddii la isku yaacayo la isqabtana maxkamado iyo shuruuc lagu kala baxaa inay jirto aad iyo aad baad u mahadsantihiin waayahay waqtigii aan sheegay waqti ka fara badan 2 arrimoodba waan u ogolaaday microphone-ka waxaan siiyey
oo inoo saldhigga inoogu dhigay hadalkeenna sidaan idhi oday qarankani u baahan yahay ummaddan u baahanto dadkani u baahan yihiin siyaasina ah laakiin mikrofoonka waxaa igala wareegay macallin baa hadlay cashar buu halkan ka bixiyey dabeedna waktigii dheeraad ka hel meesha ka baxay mu ahayn kii mikrofoonkaan u dhiibay wuxuu ahaa kii macallinka aad iyo aad baan kugu mahad celinaya macallin ciidanka dambe ee aan u yeedhi doono exactly sidaynu doonaynay buu cali sameeyey oo ah inuu salka u dhigo halkaynuu soconno inaynu noqonno ummad ku dhaqanta sharci rule of law inaynu ka fikirno development inaynu ka fikirno inaynu dalkeena la maalgashado inaynu ka fikirno xuquuqda bini aadamka ee qof kastoo inaga mida iyo koox kastoo inaga mida iyo qaran ahaan aynu leenahay intiiba caawa halkan bay joogaan inay ka wada hadlaan marka sida aydin waraaqihii aydin hesheen la qaybiyey in yar baa programku iska bedelay 4 panel bay ahaaneen 2 panel baa la isugu soo koobay oo u kala qaybsan labada arrimood labada kooxood ee waaweyn ee uu sadgareeyay uu inoo jidka inoogu furay hadalkii keynote speaker-ka cali waxaan ku faraxsanahay inuu xudaydii noo soo galay allaha sharfo waxaan aad iyo aad fadlan is dhegaysano inspire group markay hadalkay noo furayeen waxay yidhaahdeen waxyaabahaan xoogga saari doono aanu jeclaan lahayn in halkan ka soo baxaan waxaa ka mid ah boqolka cisho hore waxaynu qabsan doonay muhiimka anigu mid baan ku dirsanaya waxaan ilaahay ka baryayaa marka dambe boqolka cisho gudahooda inaynu ku adkaysano inaynu xilligaynu ballanno aynu isu nimaadno oo aynu barnaamijyadeedana bilaabano waayo caawa inta naga luntay waxay ahaan lahayd runtii maynaan dareemeen culays maynaan dareenin inaynu 20 daqiiqo iyo saacad baa aynu siino cali inaynu iyaga waqtiga ku yareyno inaynu caawa ka wada hadalno may dhacdeen haddaynu xilligeena isu iman lahayn inaynu xilligeena bilaaban lahayn waxaa ii fududeeyey mikrofoonka ma aha dad aan iskiin barayo maanta caawa halkan cidda ka hadlaysa oo dhammi ma aha qof kiina inuu u baahan yahay inaan introduction ka sheekeeyo waxay samaynayaan iyo biografigooda waxaa kaloo iyana ii fudud waraaqaha laydiin qaybiyey qof kasta waxaa ku qoran areada uu ka hadli doono ama halka uu focuska saari doono ciidanka xalka sare ii fadhiya iyaga waxaanu sheegayaa inaan waqtigeenu uu yahay intii aynu ku ballanay iyaga uma ogolaan doono inay waqtiga ku dheeraadaan halkaasaan idiin fadhiisan doonaa waan idiin muujin doonaa waqtiga idiin hadhow aniga idiin haynaya marka qof kastaaba 10 daqiiqo buu ayuu kusoo koobi doonaa fariinta uu soo gudbinayo dabeedna waynu eegi doonaa doodo halkay la marto maadaama ay idin tihiin 4 qof waxay isku darsan karaysaan waqtigiina siday u taabataan meelaha idin bogtay aad doonaysaan inay idin ummadda kala hadashaan iyo meelaha aad doonaysaan inay doodiinu ay ku ekaato waxaan ku bilaabayaa badmaax sababtaan ugu yeedhayna waxa weeyaan waxaan hadalkii ugu dambeeyey ee cali oo ahaa qarankani wuxuu u baahan yahay investmentka ugu horeyna waa in la geliyaa ummadda si ay ummaddu ay ummad u noqoto marka badmaax arrimaha investmentku kolley nagala hadli doonaa عليكم ورحمة الله وبركاته مركو روحا مهدنا سو تشيدينا يا إدارة إنسباير جروب وهو قامين يو شام علي شام يو يرده نقع سنتين نقول مرتقاتين إنه هل كان كسو تشيدينا وحي تلاقي توصالة ننكستب موضوع الله حل سارين وكهدله waxaan halkan ka salaamay markii ugu horeysay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud oo xilka wareejinaya baritoole ilaahay cimri dheer iyo caafimaad raaga siiyo madaxweynaha cusub ee xilka la wareegaya mudane Muuse Biixi Cabdi isagana ilaahay xilka ha u fududeeyo akhyaarta halkan timi rag iyo dumar isugu jirta odayaasha aqoon-yahanka dhammaanba waa salaamantiin runtii waxaan doonayaa inaan yar taabtoon dul istaago maalgashiga anuu haddaan isukin sheego waxaan ahay maariyaha guud ee hay-adda maalgashiga Somaliland waa hay-ad cusub oo la sameeyey bilya badh markaa waxaa magacaabay madaxweyne dikreetu ku magacaabay hay-addani 8 bilood ayaa laga shaqaynayey ujeeddadeeduna ay ahayd
inay noqoto sidii cali khaliif uu kaga dhawaajiyey regulatory body runtii cali baa dul istaagay hay-addu haddii aan in yar wakhtigoo kooban aan idinka sheego mandate bay haysataa in ay facilitate garayso ama ay fududayso kow promotion kobcin laba iyo retention oo ah maalgashadayaasha waddanka kuwa localka iyo kuwa dibadda ama afqalad loo yaqaano FDI foreign direct investment iyo local investment oo ay soo galaysatii isna cali khaliif uu sheegay doctorku triple B ama private public partnership waxaan ugu talagalnay inay noqoto hay-ad ka duwan macnihii awal ee loo dhaqmi jiray wasaaradda trade-ka ama baaca mushtarka oo iyadoo u xil saarayd in ay business processka ay wax ka qabato oo runtii shaqo aada u wanaagsan qabatay laakiinse haddana caqabad maadaama ay wasaaraddu ay policy inta badan ay tahay shaqadeedu inaanu annagu ka hawl fududayno inaanu qabanno alle wixii facilitationa iyo processkii ay mari jireen licensesku iyo certificationku marka waxaanu la jaanqaadi doonaa moodalada caalamka ka hirgalay ee sida singapore oo kale waxaanu samayn doonaa rules investor incentives iyo regulation iyo runtii waxyaabaha xitaa aanu recommend garayno waxaa ka mida inaanu samayno register office iminka sidaynu ognahay wasaarad kasta license bay bixisaa مثلا بل وزارة كلونك أنا example سوق هذا ما يعني واحد definite or داعي لكن سهدي license fishing كابحسه أو أي سيسو net fishing وحليرا أو ككلو ما يستا يوحوي individual بين قنا يساوي حي مركا لا أوجان كرماها وحوي مال أي سوق سو رتو أو لأوجادو لمونيتر جريو أو حبأ oo licenseska oo dhan oo commercialka ee prioritieska projectska waddanka haddii ay noqoto natural resources hadday noqoto mineral resources iyo hadday noqoto strategic resources waxa ogeydeen investmentkii ugu weynaa inuu qaranka u soo xirooday DP World 442 milyan sida dee loo yaqaano waa strategic resource oo service sidii uu cali sheegay way jaan qaaday maanta waxa inoogu jiray infrastructure-ka oo berber corridor-kii oo ah qiimihiisu 250 million 1 million per kilometer oo imika la bilaabayo January waxa inoogu jira container handling services-keenii iyo fiigii oo kor u kacay cargo-gii oo kor u kacay hadday halkay 6,000 oo tan ka ahayd مثلا ببشي maybe إمك ما هي نود data the actual كان لكن سيدات كون هدي كردين movement كإنتاسي إن أي كبعند قال نقول يسوع ما دام إنه ينقو فيجي revenue كهلينه and وحيقول شراء سيدا كويس تام program كا and صدق investment كي وانيجا كهذلي investment كوا long term investment يا short term investment waxaanu furaynaa waxa la yaalo wixii resources waddankani lahaa ee potential ah hadduu yihiin kuwa naturalka iyo kuwa mineralka iyo kuwa strategica agriculture-kii baa la furayaa waxaa la furayaa miningkii waxaa la furayaa oilkii waddankani waxa weeye 1998 World Banku report bixiya hydrocarbonku waxa weeye waddan uu ku badan yahay imaka blocks baa la bixiyey drillingkiina waa lagu wadaa laakiinse daataha la hayo waxa weeye waddankani waa qani buu ku yahay wuxuu qani ku yahay gemstoneska gypsum ayaa waddanka ku jirta iron ore baa ku jirta waxaa ku jirta special type of ma garanaysaa chemicals la yidhaha columbite tantalite waddankeenu walaalayaal waxaan idiin sheegay inuu qani yahay provided aynu inagu exploit garayno aynu yeelano system iyo policy iyo regulation ay inoogu yimaadaan foreign investors tiina imika waa la bilaabay
waxa kaloo aan doonayaa inaan taabto infrastructure-ka oo iigu jira subject-ga aynu ka hadlayno. Infrastructure-ku waxa weeye waa physical iyo organizational. waxa inoogu jira investorku haddii aynan haysan dariiqyadii iyo energy-gii laydhkii iyo biyihii, investorku waxa weeye dib buu inooga noqonayaa. marka barnaamij dhan oo imika NPD-ga National Development Plan-ka ay samaysay 2017 insha Allah 21 waxa inoogu jira barnaamijyo badan oo development-ka. Entrepreneurship-kii haddaan ka hadlo oo iyaduna ah in aynu waddan lagu yaqaano spirit-keena entrepreneurship-ku aad u sareeyo. waxaanu doonaynaa inaanu samayno wax linkages la yidhaah oo ah multinational companies-ka ama investorsku markay yimaadaan in ay SME-da ama small and medium enterprising companies-ka in aanu linkage u samayno oo ay interface yeeshaan xagga innovation-ka, skills-ka iyo xitaa haddii procurement-ka iyo contracts-ka. marka waxa weeye dee kuma soo koobi karo runtii 10 daqiiqood. marka jaamacana way sugayaa wixii su'aalana waynu ka jawaabi doonaa. haddii investment loo baahan yahay, haddaanu investmentkaasi noqonin mid isku filaansho gaadha oo sustainable ah, way adkaanaysaa inuu macno sameeyo. maxamed wuxuu nagala hadli doonaa keegi doonaa xagga civil society iyo gaar ahaan sideeba investment la sameeyo iyo horumar kastoo la sameeya wuxuu macno ku sameynayaa haddii uu sustainable yahay oo wax iswada yahay oo wax hirgeliyo keligii taagan yahay inuu wejigaa ka eego. ومسيح جامع يكون قبياشوا أنا رنتي إن عكيجو وحويان بالأدوية إن الله شقيني سواء الله يقانو دون ريسك أم international community ومحي وحباين الله قبنيان سين الله قبنيان محي سوق الدين وحين الله قبنيان مركا رنتي وسؤال لما أنت روتين بدنا أي وذوقنا هاي أما واحد بدنا كفه سن هاي ونصيب بهروتين الله سيفهمه inta badan ama guud ahaan Afrika waxay qaadataa wax loo yaqaan aid ama waxa la siiyaa mucaamooyin waa sii kala duwanaado oo kuwa dagaaladu ka dhaceen inagoo kale loo yaqaano post conflict countries-ka ama wadamada dagaaladu ka dhaceen waxa weeye way ka sii hooseeyaan kuwa kale. marka laga hadlayo tusaale ahaan aid-ka ama caawinadan la siiyo runtii dee wadamada Afrika waxa waa kuwa ugu faraha badan dunida ee recipient wax marka laga hadlayo caawimooyinka dunida. haddana weli Afrika fakhrigii ama maxaa la yiraahdaa dhibaatooyinkii weli halkii bay taagan yihiin haddii laga hadlayo governance, haddii laga hadlayo rule of law, haddii laga hadlayo democratization, haddii laga hadlayo social development. macnaha dhinac kastoo la eego Afrika weli problemka halkii buu taagan yahay iyadoo haddana ay leeyihiin qolyahan maxaa la yiraahdaa bixiya caawimada. Afrika waxa la siiyaa caawimada ugu badan dunida marka waliba la sii eego Cold War-ka wixii ka dambeeyay ama dagaalkii qaboobaa wixii ka dambeeyay. inaga marka laga hadlayo Somaliland runtii marka laga hadlayo engagement-ka caalamka ama inaynu adduunka la xiriirno waxa waa mawduuc aad inaga inoogu weyn oo ka duwan kuwa Ethiopia ama Kenya ama Uganda ama Sudan wayna ka duwan inagu taa. sababtan uga duwanahay waxa weeyaan Somaliland marka hore waxaanu kala mid nahay wadamada dagaaladu ka dhaceen la mid baynu nahay oo dhibaatooyin badan baa inagu dhacay oo waxa burburay infrastructure-kii iyo dhaqaalihii iyo maxaa la yiraahdaa wixii guud ahaan adeega bulshada oo dhan baa burburay. marka taa runtii wadamada qaar waan kala simanahay laakiin waxa weyn kaga duwanahay inagu waxaan kaga duwanahay Somaliland waxa weeyaan waa wadan de facto oo aan ahayn de jure ama aan la aqoonsanayn. marka la leeyahay tusaalahan mawduucan aanu ka hadlayo yahay caalamka maxaynu u engage karayna ama macnaha marka laga hadlayo adduunyadu inay aynu la shaqaynayno runtii marka inaga macno weyn bay inoogu fadhidaa dhinaca. waayo marka laga hadlayo aid-ka inaga wuxuu inoo yahay diplomatic channel weyn buu inoo yahay. waa channelka aynu adduunyada inta badan u marno ama ay nagala soo xiriiraan ama aan kala macaamilo ama shaqadu ka socoto. waayo wasaaradda planning-ka iyo wasaaradda arrimaha dibadda marka la eego aadna way fadhidaa wasiirka hore arrimaha dibadda shaqada wasaaradda planning-ku runtii ay caalamka la wado aad u badan tahay oo hoos yimaada waxa loo yaqaano donor ama kuwa bixiya caawimada maxaa la yiraahdaa hoos yimaada. in badan adduunku markaa wuxuu eegayaa maxaana lagu caawinaya waayo caawimada lafteedii la iskama ka soo siinayo
waxaan xasuustaa shirkii u horreeyey ee lagaga hadlo caawimada Soomaaliya in systematiga ama wax la qiimeeyo noqoto waxaan filaya adna wasiirka arrimaha dibadda hadoo furtay 2000 iyo haddana khaldan 6dii wuxuu ahaa wax loo yaqaan TNA ama Joint Needs Assessment oo World Bank ay sameeyeen iyo UN waxa ku xigay markaa paper laga qoray oo la yiraahdo RDP oo loo bixiyay Reconstruction and Development Program labadaas ay ugu horeeyay marka la eego taariikhda Soomaaliya markaad eegto literature-ka ama waxyaabii xagga development-ka oo engagement-ka caalamku markaa uu inala sameeyay marka la eego waxaan ku guuleysanay markuu dhamaaday RDP-ga ama programka ay la wadeen World Bank iyo UN-ka waxa Soomaaliya markii hore sameysay wax loo yaqaan National Development Plan oo in badan marka adduunyada inoo yimaadaan haddaan anaguna civil society-ga ama de wasaaradaha cid walba waxay dhahan balaan maxaad haysaan maxaa qorshe Soomaaliland leedahay wuxuu priority-gu yahay marka su'aashaas runtii in badan way soo noqonaysay markii koobaad waxaanu ka jawaabnay 2011 oo la sameeyay wax la yiraahdo Somaliland National Development Plan markii horeysay oo ka kooban 5 qaybood markaa kii labaadna waa tii la sameeyay oo imanka 2017 ilaa 2021 runtii balaanka aan sameynayna markaa wuxuu qaybo fara badan ka kooban yahay oo imanka qaybtan Cismaan sheegay marka investment ko kale ama trade-ka ama economy-ga ama infrastructure-ka waxyaabaha soo dhamaan runtii ku jira oo marka inagu aid-ka aan helina development-ka ama waxyaabaha aynu caalamku ina siinayo meelo fara badan ayuu khuseeyaa oo runtii kala duwan oo ay ka mid tahay in dhaqaalaheena sare loo qaado oo ay ka mid tahay maaliyaddeena in sare loo qaado oo ay ka mid tahay institutions-kan in sare loo qaado laakiin laba arrin baa runtii aad u hadheeyay ta koowaad institutions-keena aad u hooseeya hadday noqoto wasaaradaha ama institutions-ka kala duwan guud ahaanba ama public ha noqdaan ama private ha noqdaan gaar ahaan public marka marar fara badan engagement-ka caalamka la leenahay iyo caawimadana la siinayo kama soo baxaan runtii wixii dadku filayeen kama soo baxaan marka laba arrin baynu uga soo baxaynin ta koowaad inagoo awoodii dawladnimo iyo wasaaraduhu ay runtii ka hooseeyaan halkii la filayay oo ayna runtii gaadhin ta labaad aid-kan ama caawimadana la siiyay faraha badan leh Somaliland direct uma hesho oo maaha recipient country ma waa wadan macnaha isagu toos u hela caawimada maaha laakiin waxa la soo mariyaa meelo kale oo kala duwan bay martaa caawimadu taasuna markaa waxay keenaysaa inay wax fara badan runtii ayna soo gaadhin ama ayna runtii si efficiency u bixin waxa kale runtii jira marka qolyahan inala shaqaynayaan mar kasta oo systemkeena dawladnimo ama hoos u dhac ku yimaado ama doorashooyin qabsoomi waayaan iyaguna hoos bay u dhigaan marka waa condition waxa u dambeysay doorashadii madaxweynaha u dambeysay la kordhiyay 7 milyan oo dollar bay jareen Somaliland Development Fund sanduuqa la yiraahdo 7 milyan dollar ayaa waddanka Denmark ka jaray marka lacagtii oo waliba qoondaysnayd meelo muhiima oo u badan gobolada Sool iyo Sanaag runtii u qoondaysnaa lacagta way joojiyeen marka sababta ku joojiyeen marka wuxuu ahaa doorashooyinkeena runtii dib u dhacaya marka doorashooyinka dib u dhaca runtii waxay saameynaysaa markasta aid-ka ama maxaa la yiraahdaa caawimadana la siinayo waxay kale runtii eegayaan arrimaha laga hadlayay marka ama aan ku wada hadlaynay ka mid tahay rule of law-ga midnimada nabadgelyada democratization-ka waxa kale ku jira gender-ka oo haweenka runtii laftoodu inay muhiim yihiin marka runtii dee caawimadana la siiyaa conditionno badan baa runtii ku jira oo qaarkood marka la eego inagoo waddan muslimna 100% laga yaabo inay inugu adagtahay inaynu qaadano ama aynu luqno oo ay ka mid tahay in la abolish gareeyo tusaale ahaan waxa loo yaqaano qisaasta ama death penalty-ga in la abolish gareeyo oo aan la samaynin oo runtii ay tahay arrin inugu adag diiniyan iyo dhaqan ahaanba in taasu ay dhacdo marka runtii laga hadlayo fursadaha aynu imaka ka faa'iideysan karno waxa ka jira Somaliland oo aid ku caawinaya wax la reforms marka waxa ka mid ah kale wada ogtihiin waxa loo yaqaano BFM reform public financial management reformka waxa lagu talagalay inuu sare u qaado dakhliga Somaliland soo geliya inuu sare u qaado accountability-ga iyo isla xisaabtanka inuu sare u qaado dhammaan nidaamkeena maaliyadda barkuruudka hadduu yahay audit-ka hadduu yahay qaybaha kala duwan oo dhan oo markaa inject gareynaya ama hore u socodsiinaya nidaamkeena dhaqaalaha markaa contribution badan ku sameynaya iyo maaliyadda waayo lacagahan inta badan la siinayo runtii dee waxay u baahan yihiin complementary bay u baahan yihiin in inagu dhinaceennuna aynu wax ku darayno laakiin iyagu direct
100% ma bixin karaan marka runtii waxyaabihii ay aidku ama marka laga hadlayo engagementka caalamku ayada inooga taageerayeen xilliyadan dambe weliba 10 sano u dambeeyey ayay ka mid tahay arrinta maaliyadda waxaa kale ka mid ah arrinta maxaa la reformka wax loo yaqaano security sector reform oo hoos imanaya rule of lawga oo aynu u baahanahay runtii dee sharcigu inuu yahay dad uu sarreeyo hadduu sharcigu shaqayn waayo dee dowladnimadu runtii ma jirayso innaga imaka qolyahan ina siiya lacagta waxay nagu yidhaahdaan lacagta waxaa leh taxpayers oo dad taxpayerska ingiriiska iyo maraykanka iyo maxaa la wadamada ama yurub iyo wadamo kale ayaa laga soo qaaday marka su-aashu waxa weeyaan inagu taxpayers miyaynan ahayn haddayse tax aynu bixinno where it goes marka xagay tagtaa marka maxaa la taxkan bixinaa miyaynan inagu taxka aynu bixinno miyaynan maamuli karaynin oo markaa sida iyaguba ay kooda inagu caawinayaan ila waa bilaadan inala miduun haynaga dhaqaala badnaan laakiin maalin bay kolley halkan joogeen laakiin runtii marka laga hadlayo arrinta sharciga ugaasinka waa arrin runtii aad u muhiima in wadamada africa ama inagu aynu ka mid nahay inaynu dad gacanta lagu haya ama la caawinayo oo aan marnaba isku filan karayn oo inaga ka hadlaynaa shaqo la'aanta waxaan ka hadlaynaa infrastructure-ka waxaan ka hadlaynaa waxbarashada tayadeeda waxaan ka hadlaynaa biyaha waxaan ka hadlaynaa caafimaadka marka runtii arrimahaas oo dhanu waa arrimo runtii marka qaarkood la eego waxyaabaha qaarkood waa primary ama waxyaaba waa wax runtii u horeeya qofka muwaadinku inuu access u leeyahay inuu helo biyo nadiifa inuu waxbarasho helo inuu caafimaad helo marka runtii dee arrimahan arrimo 10 minut kusoo koobi kara maaha waa arrimo ballaaran jaamaca kolley warqadda lewa kaa dhacday marka aad ba mahadsantihin waa run arrimo lagu soo koobi karo maaha 10 daqiiqo laakiin qaranna kuma dhisan karayno habeen keliya marka waxaynu u baahannahay waqti dheer inaynu fariin isfarayno u baahannahay marka caawa waa fariinta aynu isfarayno inta badan waxa halkan ka soo baxaya waxaan aad ugu faraxsanahay noo soo gasho walaashina Amina had iyo jeer waxa soo galaya kolba qof muhiim ah inoo soo galaya marka aad baan ugu faraxsanahay ka soo qayb noqoto barnaamijka Amina haddii investmentkaynu ka hadalnay iyo xiriirkii aynu dibadda weygaynu ula xiriiri lahayn haddana gudaheennaynu noqonaynaa haddaanay ummadii ka fikirin ilahaani guntay ka tolontahay xuquuqda bini aadamka haddaanay eegin halka ay wax ka qaldan yihiin haddaanay isa sixin dabeedna dusha waxbay noogama hagaagayaan aad baan ugu faraxsanahay inuu guuleed nala joogo guuleed waxaan isaga weydiinayaa bal shaqadan uu qabanaya iyo wejigan cusub bilaabaya halkee baynu taagannahay halkaynu u soconnaa maxay halkaynu uga dhaqaaqaynaa halkaynu taagannahay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayay Spire Group oo shaqo aad iyo aad u muhiim ah soo qabatay in dadka la isu keeno xilligan halku dhega qoraalkooduna wuxuu ahaa jihada Soomaaliland hilinka la qaadayo su'aashaasi waxay naga rabtaa marka inaynu isweydiino sababtay dadka reer Soomaaliland dhowr iyo 20 sano ka hor gooni istaaga ugu dhawaaqeen ee Soomaaliyiinteeda kale uga tageen ma waxay rabeen inay dhammaantood noqdaan wasiiro agaasimo iyo xildhibaano mise waxay rabeen inay helaan dawlad ku dhisan mabaadi'da sugan oo ku sutan rabitaanka shacabka jawaabta weydiintaas waxa laga eegayaa heshiiska ay dalku isla galeen oo ah dastuurka Soomaaliland ay dadka shacabkana u codeeyeen araarta dastuurka wuxuu ku oranayaa dadka reer Soomaaliland isagoo hadlaya iyadoo uu waayo arag u yahay cawaaqib xumada dastuur ku salaysan caqiidada dhaqanka aan ku salaysnayn caqiidada dhaqanka iyo doonista ummadda ee laga soo maamulayay muddo 30 sanadooda iyadoo waayo arag u yahay xumada iyo dhibaatada xukun ku dhisan talamaroorsi iyo kala tiisnimo ee dalku ku soo jiray muddo ka badan 20 sanadood kana feejina dib u soo noqoshada xukun noocaas ayuu dastuurkan samaystay haddaba sababta madaxbannaanida loo qaatay waxay tahay in la helo dastuurkan soo xiginay nidaam dawladeed oo ummadda nasteexo sidaas daraadeed dadka reer Soomaaliland ujeedo biyo dhimcaana ayay kala haayeen inay samaystaan dalkan iyo jiritaankiisa waxayna rabeen sida dastuurka ku qoran oo mar laba soo xiganaya dawladnimo ummadda wada deeqda oo la mahadiyo kuna dhisan sinaan iyo cadaalad weerarada dastuurka ku qoran mudanaal iyo marwooyin si taas loo helo dadka Soomaaliland waxay abuurteen dawlad ku dhisan saddex waaxood oo kala jaada oo kala madax bannaan isna dheelitira oo ishubiya saddexdaas oo kala ah fulinta garsoorka iyo sharci dejinta nasiib daro maanta awoodda fulinta ayaa ta ugu awoodda badan ayna ku qasabiyeen saddexda hay'adood oo kale inay u nuglaadaan rabitaankeeda sidaas daraadeed caqabada koowaad ee hortaada dawladda maanta dhalatay waa sidii loogu noqon lahaa in dastuurku shaqeeyo oo si buuxda aan kala dhinayn oo kala dhantaalnayn loogu madax bannaan lahaa garsoorka iyo xeer dejinta dawladnimadu waxay ku dhisan tahay rabitaanka shacabka oo ah inay doortaan cid ay doonayaan sababtoo ah anu mar labaad dastuurka soo xirinaya
awoodda iyo karaamada qarannimada waxa iska leh shacabka ee kuwa la doortay ma laha maanta marka laga reebo madaxweynaha la doortay dhammaan hay'adaha kale oo dhan ma jiro mid qura oo ku jooga ogolaanshaha dadka reer Soomaaliya golaha wakiilada oo la doortay 2005 5 sano kaliya ilaa maanta xilka way hayaan waxayna aaminsan yihiin inay matalaan shacabka Soomaaliya golaha guurtida isaga ayaa is doorta xitaa keligii daliyaasha madaxweynayaasha ahi doorasho beenbeen ah ayuu dhigtaa wuxuuna ku doodaa inuu ummaddu jeceshahay laakiin guurtideenu iyada ayaa gacanta isku taagta oo isu codaysa golaha deegaanka oo dadka reer Soomaaliland badankoodu markaad weydiiso ay qirayaan inay yihiin gaabis waxtarkooda aad u liito muddadii la doortay way ka badsanayaan Soomaaliland fadhiidnimada inaad waxba qaban weydid baa lagu abaalmarin lagu kordhinayo dibtaasi waa mid hortaala dawladda cusub oo looga fadhiinay xaliso oo dadka shacabka ay ku soo celisay awoodii ay lahaayeen dastuurka ku qorteen mudanaal iyo marwooyin xiriirka ka dhaxeeya inta yar ee talisa iyo dadka intiisa badani way liidataa aqoon-yahanka ganacsatada iyo inta kuraasta ku fadhida ma oga oo kama war hayaan nolosha dhabta ah ay ku jiraan dadweynuhu kala go'aasi wuxuu keenay in koox yar sii taajirto nolol raaxo leh ku noolaato inta badanna ay faqiir sii noqoto oo noloshu ku adkaato waana dhibaato hortaala dawladda 22 sano oo dawlad kaligii talaysa oo shuucii dalka maamuleysay waxay bartay oo abuurtay dhaqanka kan kaligii talaysa oo ku dhex abuurmay hay'adihii dawladda waxay abuurtay qaab fikir qalloocan inkasta oo la eriyay Maxamed Siyaad Barre oo uu waa hore dhintay dhaqankiisii iyo tababarkiisii wuu nool yahay oo wuu inala jooga sidii loo abuuri lahaa dhaqan dimuqraadi ah oo qiimeeyo qofka waa arrin hor yaalla dawladda cusub tani waxay nagu qasbaysaa inaynu carabka ku adkayno in dastuurka Soomaaliland ku salaysan yahay ilaalinta xorriyadka iyo xaqa qofka muwaadinka ah dawladda waxa doorta oo dirta qof ugu yaraan ala aqal ugu yaraan ka raba inuu ka nabad galo in dibadaabyo loogu geysto awood uu isagu iska leeyahay oo uu igmaday qof la mid ah inuu ugu shaqeeyo isaga waa qalad iyo gaf weyn waana shay majaxaabiyo waaritaanka dawladda yaynaan ilaawin Soomaaliland loo abuuray si ay u ilaaliso dadka haddii ay niyadu hayso xoog sheegasho iyo booliis aan sharciga marin markuu dadka la macaamilayo may erideen Maxamed Siyaad Barre waayo odayga iskama sanifin dadka reer Soomaaliland ee aragti ayaa la isku diiday waa arrin hortaala dawladda cusub siday hay'adaha dawladda ee booliisku ka mid yahay ee qaatay tababarkii Siyaad Barre loogu sameyn lahaa dib u habayn sal iyo baar ah oo loogu eekaysiinayo dastuurku wuxuu rabo mudanayaal iyo marwooyin waa arrin hortaala dawladda sidii ay qofka uga dhigi lahayd mid la ilaaliyo karaamadiisa iyo sharaftiisa ee baha weyn uu siiyey quraanka ayaa weynuhu ku sheegay in bini aadamku karaamaysan yahay taas waxa ka mid ah xorriyadka inay dadku aragti yeeshaan iyo inay cabiraan iyagoo aan baqay anigoo ogsoon gaabiska aqooneed iyo xirfadeed jira haddana marna cudurdaar looma heli karo xariga iyo cagajulaynta warbaahinta loo geysto waxa dawladda hortaala inay dulqaad u yeelato dhaliilaha lagana qaado xayiraadda warbaahinta xayiran ee uu ka mid yahay wargeyskii caanka ahaa ee Haatuf warbaahin dhiiran oo wax dhaliili kartaa waxay udub dhexaad u tahay dimuqraadiyadda iyo horumarka markaa waxaa hor yaalla dawladda inay abuurto xeerar warbaahineed dhibaatooyinka ay dadku sida weyn uga calaacalaan goor walba waxaa ka mid ah musuqmaasuqa aan la qarsan ha ahaato sarkaal hoose oo shaqadii loo igmaday laaluushu magacyo ula baxay ka ku qaata ama qof isagu aan waxba haysan madax laga dhigay oo dharaaro dabadeed faraqa buuxsado taajir noqdo ma jiraan xitaa hay'ado u xilsaaran la dagaalanka musuqmaasuqa markaas waxay caadi noqotay oo fududaatay boobka hantida ummadda waa dhibaatada aabaha iyo hooyada oo ah shida kasta oo Soomaaliland ka jirta haddii aan wax laga qaban waxay sida xarka u cunaysaa dalka ma lihiin guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa hay'adaha xafiiska xilaalintu ka mid yahayna ma qabsadaan shaqadoodii iyo hanti dhowrka guud oo hantida ma ilaaliyaan waxaan dawladda kolka ku soo jeedin lahaa inay musuqmaasuqa la dagaalanto oo ay abuurto hay'ado hawlaha wax ka qaban kara waxa kale oo dawladda hor yaalla sida ay uga dhigi lahayd Soomaaliland mid loo dhan yahay mid ay cadaalad iyo xaq ay leeyihiin ay ka helaan dadka deegaanada Sool iyo Sanaag bari cali khaliif aan ku raacsanahay Soomaaliland ay ka mid yihiin oo ku nabad galaan xaqoodana ku helaan dadka laga tirada badan yahay Soomaaliland ay dumarku faa'iido ka helaan iyaga oo shooga oo laga qayb geliyo meelaha go'aamada lagu qaato aanay ka mid noqon codbixiyeyaasha waxa xaqiiqa nidaam siyaasadeedka Soomaaliland uu ka baydhay bartii loogu talagalay oo hanaan dimuqraadi oo noqday mid beelaysan oo reernimo ku shaqeeya waa dawladda waxa hor yaalla in la helo dawlad dimuqraadi ah oo ka guurta sababtoo ah nidaamka qabaliga ay wuxuu keenaa qaraabakiil iyo musuqmaasuq haddii aynaan ka leexan siyaasadda reeraysan iyo xisbiyada magac xisbi leh dushana reer ka ah
shaki badigama jiro inay ku dhex jirno marxaladdii 60kii ilaa 60kii la soo maray khaladaad mar hore samaysana mar labaad laguma noqdo dadku way daaleen codayntii waxa taa ku tusay in 550,000 kaliya ay codeeyeen dadka sidaa u tiro badan sababtay u daaleen wax kale maaha dadka la doortay baa been ka sheega oo aan u qaban waxay u ballan qaadeen ugu dambeyntii waxaan rajaynayaa inay dawladdu wax ka qabato qodobadan soo socda taladeedii baan kusoo gabagabeynaya inay raacdo oo adkayso dastuurka inay ixtiraamto xuquuqda iyo xorriyadda dadka doortay oo aan hadhowto lagu kibrin inay xadido oo la dagaalanto masiibada musuqmaasuqa ee caadiga ka noqotay Soomaaliya inay dhisto hay'ado dhisan oo aanu ku cuna duubnayn qofka markaa xafiiska ka madaxda inay abuurto nidaam dawladeed maamulkiisu daadegsan yahay oo aan wax walba caasimadda iyo hargeysa loo soo doonan inay siyaasadda iyo qabyaaladda kala fogeyso inay ku shaqayso cadaalad iyo sinaan dadka wax ka maqan yihiin sool iyo sanaag bari ka mid yahayna xaqooda la siiyo in la abuuro la xisaabtan iyo in iyada dawladda laftigeeda lala xisaabtami karo inay wax ka tagto adeegyada faraha badan ee biyuhu ka mid yihiin caafimaadku ka mid yihiin ugu dambeyntii dawladdani waxay haysataa fursadda ay haysataana waxay in la doortay kow madaxweynuhu inuu ku soo baxay cod aad u tiro badan waa laba kuraasta baarlamaanka inay ku badan yihiin xisbigiisu waxaasoo dhammi waxay u sahlayaan inuu sameeyo isbeddel runa dadkuna waxay u heelayyihiin inay helaan isbeddel runa aad iyo aad baa mahadsantihi guuleed aad iyo aad baad mahadsan tahay maaha oo keliya inaad ku soo xisaabtantay wakhtigaagii laakiin noloshaad la soo xisaabtantay qarankanaad u soo xisaabtantay adigoo diyaar ah baa timi waxaana ku qurux badan tahay markaad adigoo diyaara timaado inaad fariintaasoo kale u gudbiso aad baad umahadsan waa yahay qaybtii koowaad banal koowaad baynu soo gabagabeynaynaa waxaynu kusoo gabagabeynaynaa hadalkii ugu dambeeyey afarta panelist inala hadlaayey edna aadan ismaaciil maaha oo keliya hawshii faraha badnayd ee muddada dheer ay qarankan ugu soo jirteen haystay laakiin xil gaara oo lagu ogyahayna wuu jiraa oo gaar ahaan ku saabsan wadahadalladii ka dhexeeyey ee soo socday muddo fara badan ee hadda istaagayey haddana dhaqaaqayey ee somaliland iyo soomaaliya waa hawl kaloo iyadana taalla bay noqon doontaa adna marka la eego xidhiidhkaasi qayb wuxuu ka soo gelayaa caalamka xidhiidhkan loo leenahay ayuu ka mid noqonayaa waa wasiirkii hore arrimaha dibadda marka adna بسم الله الرحمن الرحيم waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhalinyaradii Inspire Group ee soo abaabushay ee hindistay isu imaatinkenan waa fikrad aad u wanaagsan waxayna tusaysaa in jiil cusub u kacay Somaliland waxay ku tusaysaa inaynu leenahay dad raba inay waddankeenan dalkeenan Somaliland ay u fidiyaan ama ugu tabarucaan aqoontooda awoodooda hindisahooda aad baan ugu mahadnaqayaa aad baad mahadsantihiin hooyo wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya intaanan wax ka odhan horta waxaan jeclaan lahaa inaan Somaliland wax ka idhaahdo Somaliland sidaynu ognahay laakiinse haddana kolley dad baa inala jooga aynu u baahannahay inaynu Somaliland ka dhaadhicino waxaa laga yaabaa 20kii sannadood ugu dambeeyey inay fikrado ka maqlayeen Somaliland akhrisanayeen riboodo laga qoray Somaliland laakiinse Somaliland waa halkee waa maxay waa dalma Somaliland waa dalka ugu da'weyn dalalka ay degaan dadka ku abtirsada Soomaalida waa dal haddii loo eego dalalka Afrika qaaradda Afrika degan waxa uu ka weyn yahay oo ka dhul ballaaran yahay 18 ilaa 19 dal marka maaha filiid yar maaha gobol yar oo meel ka go'aya waa dal in badan ka weyn dhul ahaan marka loo eego dadka degan waxay haddana ka weyn yihiin oo ka tiro badan yihiin 18 dal oo kale waynu wada garanaynaa dalalkaas waynu tirin karaa 18 dal baynu ka weynahay
haddii loo eego xuduudda aynu degannahay maaha xuduud inagu aynu iska jeclaysanay oo aynu khad marinay waa xuduud aynu ka dhaxalay mustacmarkii ingiriiska ama maxmiyaddii ingiriiska waayo marnaba mustacmarad maynaan ahayne maxmiyaddii ingiriiska baynu ka dhaxalay ingiriiskuna wuxuu xuduuddaa u dhigay isagoo heshiis la galay dowladihii iyaguna wax gumaysanayay markaa jiray sida faransiiska iyo talyaaniga iyo dalka etoobiya ee aynu jaar nahay ee inaga xiga xagga qorac u dhaca galbeedka maya koonfurta inaga xiga markaa somaliland horta waa dal jira weeyaanoo xuduud leh waa dal dadkiisu ay ku wada hadlaan luuqad keliya waa dadka degani ay isu wada eg yihiin dad kala midaba maaha dad kala afa maaha dad kala diina maaha dad kala dabeecada maaha waa dad isu eg isku dhaqana isku diina isku afa isku deegaana deegaankana ay deganaayeen qarniyo waa dal xoraystay xuduudihiisii xoraystay hadiyad looma siin ciidamo kale umay xoraynin waa ummad iyadu xoraysatay dalkeedii ku dhex beernaa ku dhex yaalay xuduudihii caalamiga ahaa ee loo xariiqay ee ay ka hantiyeen maxmiyaddii ingiriiska somaliland waa dal markii uu xoraystay haddana heshiis la galay ummadihiisii oo ay ku heshiiyeen inay dalkoodaas maamushaan maamulkaa ay maamulanayaan wuxuu u baahday inay dastuur samaystaan dastuur bay samaysteen way ku heshiiyeen waxay sameeyeen afti bay qaadeen dastuurkan aynu samaysanay heshiis ma ku nahay ka go-an aynu ka soo go'nay dalkii aynu mar maamul wadaagnay ummadday raalli ma ku tihiin ummadda waa codaysay aqlabiyaddii waxay garatay in dastuurkaasna ay aqbaleen ka go-ii dalkii aynu maamul wadaagaynana aynu ka goosanno oo aynu inagu danteenna iyo maamulkeenna inagu aynu u madax bannaanaano markaa dal qori ku qabsaday ma lihin dastuur baynu ku degannahay waxaynu samaysanay haddana nabadgelyaynu samaysanay nabadgelyadaasoo suuro gelisay caawa iyo doorashooyinkii aynu iminka ka soo baxnay inay inoo suuro galaan markaa horta dalkanu waa dal jira maaha dal cid ka go-aya waxaase dhacay in markii aynu ka goosannay soomaaliya aynu ka go-nay ee inagoo ah weliba heshiiskii markaynu gallay dalkii da-da weynaa ee xornimadiisa ka hor qaatay dalkan aynu jaarka nahay ee aynu maamulka wadaagnay waxaa dhacday in adduunku u qaatay inaynu nahay dal ka go-aya ama jab ka soo jabaya ka soo go-aya soomaaliya soomaalida waxay ku maahmaahdaa been fakatay runimo gaadho beentii fakatay ee ahayd somaliland ma aha dal ee waa gobol naga go-aya haddaanu nahay soomaaliya waa dad doonaya inay soomaalida kala jajabiyaan waa dad doonaysa inay keligood tashadaan oo ka baxaan heshiiskii maamul wadaagii soomaaliya aynu la gallay marka waxaa inagii laynaga dhigay shufto waxaa laynaga dhigay dad wax jajabinaya waxaa inagii laynaga dhigay dad aan istaahilin ama aan u qalmin ama aan u bislayn inay dalkooda maamushaan intaasoo dhamman way fakatay waxaa laga sheegaa waxa la yidhi odaygii churchill ee prime ministerka oo ahaa ingiriiska wuxuu yidhi marka ay beentu waddada ay dooxa ka tallowdo runtu weli surwaalkeedii bay sii gashanaysaa maanta soomaaliya warkii ay inaga sii daysay inaynu nahay dad wax jajabinaya gobol yaroo iyaga ka soo go-aya
waxaynu inagu aynu ka daba dhaqaajin kari weyne ama dhawaaqeenu uu noqon waayey mid beeneeya beentaa laynaga sheegay 27 sanadood bay nagu qaadatay ilaa maanta waxaynu isugu yeedhnaa magacii siyaad barre inoo bixiyey waqooyi baynu isula baxnaa ayaynu isugu yeedhnaa dee waqooyi ma nihin dal baynu nahay magac leh gobollada aynu jaarka nahay ee soomaaliya ka mid ah gobolladii ay isugu yeedheen ama ay la baxeen ayay isugu yeedhaan innagu magacii ka da'da weynaa gobolladaas magacyada ay la baxeen ayaynu isugu yeedhi kara la'nahay somaliland baa layna yidhaa somaliland inaynu dhaano haddaynu ka hadlayno dalka soomaali degta aynu jaarka nahay ee jabuuti baynu dhaanaa haddaynu ka hadlayno dalka aynu jaarka nahay ee soomaaliya baynu dhaanaa magaceennu waa somaliland inaynu markaa mar walbaba la baxno weeyaan wadahadalladiiba markaa yimid wadahadalladu marna way kacaan marna way fadhiistaan way bilaabnaan heshiisyaa la gaadhaa haddana ma fulaan waxaan anigu akhristay heshiisyadii laysla galay heshiisyo qurux badan bay ahaayeen laakiinse may noqonin qaar wada hirgalay ciddii aynu heshiiska la gallaybaa ayaa ixtiraami weyday oo fulin weyday ma innagii ayaa ku dhaqaaqi weyn oo ku adkaysan weynay heshiisyadii laynoogu markhaati furay aynu xaqa u lahayn miday tahayba heshiisyadii hore aynu gallay may hirgelin manay dhaqaaqin mana lagu shaqayn maanta somaliland heshiiska aynu rabnaa waxa weeyaan heshiis aynu u soo dhicinno geeska africa waxaa ku nool 140 milyan oo ummadaa ku nool 140 milyan oo dada oo u baahan inay kobciyaan dakhligooda kobciyaan bayc mushtarkooda hagaajiyaan dhaqdhaqaaqoodu uu xoroobo 140 milyan oo ummada oo geeska afrika degan oo haddaad ka bilowdo eritrea jabuuti ethiopia somaliland soomaaliya kenyana haddaad doonto ku dar ayaa maanta u baahan geeska africa inay ahaato mantaqad degan oo horumar gaadhi karaysa somaliland waxay ku taallaa geeska africa boggiisay ku taallaa somaliland waa meesha intaasoo dal ugu nabadgelyo wanaagsan weeyaan haddana waxaynu ka tirsannahay mantaqadda loo yaqaano mantaqad aan dowladi ka dhisnayn inaynu nabadgelyo leenahay oo dowladi inoo jirto adduunku ma oga waa inaynu inagu muujinaa somaliland waxay u baahan tahay inay xor u ahaato badaheeda badaha somaliland oo hagaaga oo furan oo shaqaynaya waxay dan u tahay 140 milyan ee degan geeskan africa somaliland oo iska caabida oo albaabada ka xidhata ciddii nabadgelyo darro u soo wada geeskan africa iyo ummadaha degan waxaa loo baahan yahay somaliland oo loo aqoonsado inay tahay dal kaalin weyn oo muhiima ka geysan karaya arrinkaas dadka aynu walaalo nahay ee soomaaliya waa dee walaalaynu nahay waynu isaga dhownahay cid kasta qaramada midoobay ee inoo dhaxeeya innagaa isaga dhow innagaa isku afa innagaa isku dana innagaa isyaro feedhfeedhnay innagaa ka heshiin karna innagaa isi saamixi karra innagaa wixii inoo dana ka wada hadli karraa turjubaanuma baahnin geedkeennii baynu isla fadhiisan karraa waynu ka wada hadli karraa waayo waxa adiga kuu dana anna ii dana waxa aniga ii dana adigana kuu dana cidday ay danta waxaas nabadda iyo heshiiska iyo walaalnimadu iyo jaarnimadu ay danta u ahayd waa labadeennan dal ee soomaaliya iyo somaliland midkeenna midka kale ma laha qandaraas lama siin muu iibsan qori kumuu dhacsan kalgacayl iyo walaalnimo
ayaynu ku wadaagnay maamul aynu ku heshiinay aynu isku raacnay inagoo rajaynayna inay walaalaheenna kale ee markaas aan nasiibka u helin sidii inagoo aynu nasiibka ugu helay xornimadeenna weli mustacmarad ku jiray ayaynu isu raacnay si iyaguna inoo soo raacaan waxaynu isku raacnay kalgacayl dadku markay wax ku heshiiyaan waxay rajo ka qabaan in israacaasu wanaag keeno marar wanaag badan keenay way jirtay oo afkeennii soomaaliga ahaa baynu wada qorannay aynu maanta aynu qorannaa ku hadnaa oo bugaagna ka qorannaa waxyaabihii wanaagsanaa ee aynu wada qabsannay bay ahayd waxaynu dhisannay waddan loo aqoonsan yahay dad isku mid inay degan yihiin oo isku afi haddana markii aynu maamulkii waxay naga soo dhex galeen aynu ku heshiin weynay ee dagaal dhacay ee xasuuq dhacay ee ummad dhamay inaga dhimatay innagii dhaawaca weyn laynoo geystay oo muruq dowladeed laynoo qaaday waxaynu ku horreynay kuwii noqday musaamax maantadii dalka joognay waynu badbaadinay dadka maanta inoo yimaaday nala degan anigu waxaan cisbitaalkayga dadka ugu badan aan ku daweeyaa waa dad ka yimid xuduudda soomaaliya dhinaceedaa shishe arday badan baan wax baraa oo ka yimid soomaaliya musaamax baynu nahay laakiinse mid baynaan qaadanayn in magacaan lahayn magacaan geyin in la iigu yeedho waxaynu wada hadlaynaa markaan adna ku ixtiraamo adna aad ixtiraamtid soomaaliyaan kuugu yeedhayaa magacaagii aad lahayd intaynaan israacin adna magacii aan lahaa intaynaan israacin ee intaasoo dhanna aanan marna meer dhigin ayaa ana la yidhaahdaye horta adna magacaa iigu yeedh waxaynu wada hadli karnaa marka ay xaqiiqdu timaado ay soo baxda xaqiiqdu inaanad xoog igu jabinin ee anu waan iska kaa caabiyey oo anu waan ciidankaagii iska saaray waxaynu wada hadli karaa marka aynu isu aqoonsanno dad aan kala guran karayn oo kala guuri karaynin ee dad isku dheggan inaynu nahay oo haddaan dumo adiguna ay ku gaadhayso dhaawacaa adiga ku haysta 7 sannadoodna anigaba ay damqayeen oo ay xanuujinayeen oo aanaanu marnaba aanaanu jeclaysanayn marka ama qarax ka dhaco soomaaliya ama dad lagu xasuuqo ama argagixiso ka dhalato marnaba soomaaliland kumay farxayn way ka ku dhimanayay wuxuu ahaa qof soomaaliyeed oo garabkayga bannaynayu ahaa inaynu isu damqanno inaynu garta isi siino inaynu wixii aynu wada qabsan karo aynu kuwaas aynu ku heshiino wax aynu wada qabsanno heshiisyadii hore ee ina soo maray ee lagu heshiiyey qalimada lagu duugayna inaynu iyagana aynu hirgelinno oo aynu fulino waxaynu u baahannahay somaliland xaqa leh dadka aynu jaarka nahay xaqooda siina ummaddeena somaliland degana xaqeeda siina haddeer in badan ayaanu ka hadalnay oo dadkii iga horreeyey ka hadleen somaliland cid keliya inay xuurto ku haysata waa khalad cidna cid somaliland kama laha cid somaliland ka awoodda dhaqaale ee badan haystaa kama laha ka faqiirka ah ka cilmiga lih ka aan iskuul gelin kama laha ka qabiil uu isbidaya weynaan ka dhashay ka qabiilooyinka kale ka dhashay kama laha ka u dhashay ina rag xaawalay kama laha kale ilaahay laxaadkiisa u dhameeyey kama laha qofka laxaadkiisii ama dhaawac gaadhay ama wax kale ka dhiman yihiin somaliland kama laha caruurteeda xaq kama laha caruurtaasuna xaq baynugu leedahay inaynu badbaadinno inaynu waxbarno inaynu barbaarinno inaynu u horseedno hoggaan wanaagsan aynu tusno xaq baynu u leenahay laakiinse inaynu ku itaashino caruurteenna aan wax iska celin karaynin dee xaq uma lihin
waxaynu xaq u leenahay oo muwaadin ka soo Somaliland degan uu xaq u leeyahay inuu u helo fursad uu ka faa'iideysto maalgashiga waddanka soo gala waxaad moodaa oo weliba aan jeclaan lahaa in inamada aan ayayda u ahay ama hooyada u ahay ay xusuustaan marka maalgashiga la bixinayo waxaad siisaan dadka doonaya 100,000 150,000 50,000 baad siisaan ka 150,000 amaaha doonaya waa qof markii horeba haystay hanti uu ku sii kobciyo 150,000 ka gacan u baahan waxa weeyaan ka aan 5,000 haysan ee 5,000 wuxuu qaban lahaayeen ka 10,000 wuxuu qaban lahaayeen kuwaas u baahan waxa u baahan maalgashi ka ay ugu horeyso mar dad baa ku faanaya anigu 3 jeer 4 jeer baan wax qaatay waynaana 3 jeer oo 4 jeer wax qaadan sababtoo ah kuwii aan wax qaadanin wixii u yiilay xeerada ugu jiray ayaad ku soo noqnoqotay oo ha 3 eefin oo ha 2 eefin marka waxaan jeclaan lahaa in kuwaana si cadaalad loo eego oo hantidaas si cadaalad loogu qaybiyo oo waliba loo sii yareeyo oo waxay wax u noqon kara dadka daciifka ah in loogu soo jijabiyo cadaaladdu waa muhiim waxa in la kala ilaaliyaa ama waa xoog aad iga baqayso inaan iska kaa celiyo ama waa damiir iyo xishood iga kaa celiya oon kaa xishoodo oo aan damiirkaygu ii siin waayo ii ogolaan waayo inaan meel kaaga dhaco haddii intaasu shaqay weydo sharcigaa shaqaygu kaa ilaaliya sharcigu iyo cadaaladdu iyo dastuurku waa inay shaqeeyaan hantida ummaduna hantida qarankuna waxay tahay ammaano waa inaynu ammaanadaa ururinaa ilaalinaa iska ilaalinaa faraheenna iyo fara kaleba ka ilaalinaa haddaynan sidaa yeelin oo aynan maamul wanaag samaysan oo aynan ammaano xafidaad aynan lahayn ixtiraafkan aynu doonaynaa wuu sii kalena taalmaya wuu inaga fogaanaya marka dardaaranku waxa weeye maamulkeena hagaajino dastuurkeena ku dhaqanno cadaalad u yeelano cid walba qarankeena degan maamulkeenu noqdo mid cad oo u cuntama ummadoo dhan oo aan eexi ku jirin oon qabiil ku jirin oon xoog ku jirin oon boob ku jirin inaynu noqono dad ay ka dhab tahay Somaliland aynu sheegnay dad ay dhab ka tahay inaynu ahaano oo magaceena inaan marnaba ka xishoonin oo mar walba ku faano waa inaynu ahaanaa dad dastuurka ay dhigteen ku dhaqmaya hadday tahay baarlamaan iyo hadday tahay geedka hoostiisa iyo hadday tahay guriga iyo hadday tahay xafiiskaba waa inaynu ahaanaa dad diyaar u ah inaynu shaqayno xafiisyada ma u doonateen muraad ma u gasheen 8 7 8 barka cidi ma joogto ma xafiis muraad ma idinka galay 12 ama 1 midna cid ugu tagi maysa 3 saacadood ama 4 saacadood dal ku dhisi kari mayno 9 ilaa 12 dal ku dhisi kari mayno dalalka koray ee qaniga ah 8 iyo 9 saacadood bay shaqeeyaan inagoo rabna inaynu dalkeenan dhisano ku dhisi kari mayno 3 saacadood iyo 2 saacadood oo aynu qaranka u shaqeyno mushaharka layna siiyaa waxa laynagu siiyaa bisha hawshii qarankaasu iga baahnaa oo aan u qabto saacadihii layga baahnaa oo aan u shaqeeyo ayaa qaranku mushahar ku bixiya oo cidda mushahar qaataa anigu mushahar ma qaatee waxa taasaa lagu siiya laguguma siiyo 2 saacadood laguguma siiyo saacad laguguma siiyo makhaayad heblaayo iyo hodhel hebel igu kaalay waxa lagu siiya xafiiska laguguma siiyo makhaayad heblaayo iyo hodhel hebel igu kaalay waxa lagu siiya xafiiska oo joogto ama hadaabaad ka maqan tahay ciddii halkaa loogu yimaada ay noqoto ciddii muraadkii qaranka ummaddu u lahayd xafiiska u qaban karta oo ku matasha oo shaqadii u qaban karta haddii wax walba ku xidhnaadaan wasiirkii baa maqan wasiirkana aanu soo fadhiisanayn
dee yaa ka wasiira markaa maxaa wasiirka loo magacaabaya haddaan wasiirkii shaqaynayn waxaan anigu aan qabaa somaliland iminka july august september october november december waa 6 bilood iminka intii aan ku magacawnaa wada hadalka soomaaliya iyo somaliland weli xafiis ma lihi mushaar ma lihi tilmaan ma lihi shaqaale ila shaqeeya ma lihi waxaan ku shaqeeyaa qaarkiinba malaha garanaya tilmaantaasi askar maroodi baan ku shaqeeya waanan ku faraxsanahay haddaan ummadayda askar maroodi wax kasta baan ugu shaqeeyay inaan ummadayda wax u qabto waan ku faraxsanahay laakiinse waxay ku qurux badnaan lahayd oo anna aan wax ugu qaban kari lahaa qarankan idinkana wax idinku qaban kari lahaa iyadoo ay tilmaamo jiraan la i tilmaamo amkaaniyaadkii aan ku shaqayn lahaa la isiiyo ciidankii la shaqayn lahaa la ii soo magacaabo ama la yidhaha soo xulo dad badan baa maanta halkaa jooga oo aan jeclaan lahaa inay la shaqeeyaan maantana ka hordegi maayo madaxweynaha cusub ee berita la dhaarin doono ka hordegi maayo horta kolley qofkii qarankan u shaqeeyun baana kolley qofkii u shaqeeyaan haddii magacaabistii hore la igu magacaabo oo dabeetana hawsheedii la ii diro oo dabeetana wixii aan ku shaqayn lahaa la ii tilmaamana diyaar haddii wax kale farta la igu fiiqana waan laga wada hadlayo iyadana waa diyaar laakiinse marba waxay noqonaysaa wixii ummadda somaliland aan u qaban lahaa laakiinse askari qori loo dhiibay rasaasna aan loo dhiibin hayga dhigana ee wixii aan wax ku qaban lahaa waa in la isiiyaa waxaan jeclaan lahaa somaliland inay yeelato safiiro badan maaha safiiro la magacaabay laakiinse waa safiiro ay ka dhalatay qalbigooda ay ka dhalatay 4 milyan oo somalilanders ah oo safiiro ah baynu u baahannahay oo rag leh oo dumar leh oo waayeel leh oo culimaaudiin leh oo dhalinyaro leh oo dhalinyaradan maanta halkan caawa halkan isugu keentay oo meedhan oo safiiro ah baan doonaya qof walba wuxuu matalayaa somaliland image wanaagsan waa inaynu ka wada dhiibnaa waddankeena somaliland waa inaynu tusnaa inaynu nahay dad leh sharaf magac awood iyo determination dhabar adayg oo 27 sanadood baynu u dhabar adeegnay haddii loo baahdo 27 sanadood dambana u dhabar adeegaya inaynu xaqiina soo dhacsano marka abtigay ha igu warwareegin ducuun baa ii hadhay aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baad mahadsan tahay eedna waxaa wixii afku kari waayey inuu yidhaahdo bay igu qasabtay inay caguhu kacaan oo iska agtaagaan markaa saasaan usoo kacay way adag tahay in eedna hadalka laga joojiyo waayo fariinta boqolka shan socda waxaynu qabanaynaa waxay ahayd mid inagoo dhan lagu wada socota dawladda cusub bay fariinta fartay inagay fariini fartay 4 milyan oo somalilanders bay fariin fartay marka hawshu aad bay ballaaran tahay waqtigaynu haysanaa waxaynu ku taagannahay sidii aynu programka u qabsanay oo habsan ma nihiin intii naga luntay waynu soo ceshanay waxay noo hadhay kulan kale oo kan la mid ah baa noo hadhay waxaa isdhegaysano inta kooxda inspired buu qof ahaan uu microphone ii qaadayo waxaan ka codsanayaa 4 su'aalood baan weydiinayaa qofka su-aasha ka jawaabaya halkaas soo taagaya su-aashuu weydiinayaa ama qof buu ku dhaartiranaya ama dhammaantood iyaguna mar bay wada qaadanayaan dabeedna way ka jawaabayaan 4 gamcood ugu horreysay si ay soo kala horeeyaan biliis soo wada raacaan yaxya igu soo kaca adiguna roob leh anigii baa magaciina sheegay haddaydin magaciina ku horreysiisaan aad bay wanaagsantahay su-aasha intaan la weydiin haddaad qof toos weydiinaysana qofka toos weydiin بسم الله الرحمن الرحيم ود ما سنتين ود السلام يا دمانتين سؤال عدي ربطها كجوابته وبنا الكودم بنوجه تجي دونا وحن كفوري هدراوي وحي لكل هدان قراد لقلا هرين قلب بشيء كذا قلب بشيء كذا أنت ما أنكو قاعد شيء سني هاي قولي واولي وحن دونا يا إن سانو فهنسنا هاي السومال لنا ودلية هذا خلطان تهوي دي شيء عاد باللغة هذلي
somaliland la wada leeyahay waxaan u arkaa somaliland ay wada leeyihiin ka magaalada jooga inanka yar ee cagaagan ee bilaasirwaalka ah ee markaynu 5 kilomitir hargeysa ka baxno cadceedoo kulul ciidda fadhiisanaya ee ay dhibto markaa somaliland la wada leeyahay ma somaliland ay qabiiladu wada leeyihiinba ma somaliland ay gobolladu wada leeyihiinba mise waa somaliland ay 4 milyan ee ku nooli ay wada leeyihiin oo caawa dhaxanta 9 garaacaysa ka meelu ka galaa aan haysani inala leeyahay 300 ee fadhina hoolkan diiran ee sharaabka cabnay taas waan ka bixi ustaad su'aasha labaad roob la soo ka xumahay hal su'aal halkaasad haddaan ku xumaadeen yaxya hal iga raali ahaado waqtigu waa inagu cidhiidhi waayo panel dheer baa inoo hadhaya waayo anigu su'aal ma hayo laakiin waxaan sheegayaa waayo hadda waa la maqlayaa waayo soomaalida waxay u baahan tahay 4 shay in laga takhaluso kow salaadiin ha laga takhaluso waqtigooga u dhacay yes wax badan ay qabteen imika u dhammaaday salaamada ku dhece seexda kow laba da weyn ha laga takhaluso sooda wasiir kasta la magacaabo da weyn ma lagu magacaabaa 3 monopoly oo hal oo dhowr shirkado uun ganacsiga maamulo uun ha laga takhaluso janskaas iyo dadka kabriya yar iyo dukaamada ha soo kacaan 4 qof kastoo haystaa 2 mobil waxaan garan waaye waa maxaa la isku dari waaye 2 shirkadood oo qof kaste meel kastoo aan aado waxaa qasaa oo aan tago hal mobil buu leeyahay laakiin annagu waa halka ummad keliyata oo 2 mobil isticmaasha sababtoo waxa weeyaan waa 2 sim cards okay yaxya waad mahadsantahay 4 battery waan sheegaya su'aal afarta waad sheegtay aad baad u mahadsantahay waxaan ka codsanayaa inspire group iyo ciidamada kale ee qaban qaabiyay shirarkan oo kale inaynu badsanno oo ilaa iyo bisha soo socotaynu habeen kasta mid qabsanno aamina dhammaantiin waan idin salaamayaa waxaan u ducaynayaa madaxweynaha axmed maxamed shiilaayo oo ka degaya xilka waxaanan u ducaynaya in ilaahay u fududeeyo muuse isagana madaxweynaha cusub waxaan aad u ammaanayaa dadka soo qaban qaabiyay shirka kan waan idinku mahadinayaa riili waayo waxa weeyaan hana daynina mar kastaba sameeya 2 su'aalood baan damcay inaan weydiiyo I think ta iigu badani waa ta dhaqaalaha waxaan anigu ahay dadka ku haftay inay soo saaraan local resource development milix baan galay kalluun baan galay doonyahan sameeyaa biyadana waan isku dayay waxaan ogahay in aan sidii la doonayay dawladduna u caawin maxaan ku idhaahday dadkeena baacimisharka aad wuxuu haystaana local resourceka waxbaba ka geline ay ka keenaan dibadda 100% arrimahaasi maxay idinka yaalla inay idin hore u marisaan sidii aad u sheegtay waan ku faraxnay baxnaan in ay idin forumkaa samayseen ama institutionkaa samayseen علشان إنا سنة كسبرية تسكريسان أما بيرها أما كلوميسيجا أما حولها أما معدنتا سدتك أو حلان أما كبعين دقالة أما شقا أبور واحد شرطة أكله سؤال شيء قال بعض وحويان آمين ولا لا أديت بنو ما يسقون بويدينا يا ما ولا السؤال بين ويدينا ورنتي وحنو هاي السنة آمين ولا ريدقيسو وحنو هاي السنة بانل كجوابيا 45 دقيقة كله إنه كجوابيا سؤالها نتوسع النودن مركا هدين نريد هل سؤال أنا إلا سعة مرعيا
walaal waan ku adkaysanayaa iga raalli ahow runtii waan ku adkaysanaya iga raalli ahow cabdirashiid anigu hal su'aal oo qura isqabsan mayno jaamse jaamac isma qabsan doono ugu horeyn waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadkii soo qaban qaabiyey iyo afarta panelist ee inala jooga si qiimo leh ayayna arrimaha ay ka hadlayeen mid waliba uga hadlay saasaan ugu mahadnaqayaa waxaan laakiin su-aasheeda ku socotaa si directly waxay ku socotaa oo qaybsanaha Somaliland ee arrimaha wada hadallada Dr. Adna Aadan ayay ku socotaa inkastoo iyada de hadda loo dhiibay positionka loo dhiibay laakiin the way forward mar haddaynu ka wada hadlayno waxa uga yaala baan su'aal ka weydiin doonaa Dr. Adna Aadan waxaan rabaa inaan kula socodsiiyo inaan dhowaan markaan jaamacadda dhameynayay sameeyey research ku saabsan wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya dhowr meelood baanan ka eegay ku daali mayno iyada afar su'aalood baa aad dadku isaga weydiiyaa su-aasha koobaad waxa weeye dadka aynu u dirsanay wada hadalladu ma yihiin dadkii saxda ahaa ta labaad waxa weeye dalka inay wada hadashinaya Turkigu ma yahay dalkii ku habboonaa ta saddexaad waxa weeye inagu si fiican ma u dhisnay case-keenna ka afraadna waxa weeye danaha adduunyadu ka leeyihiin afartaan anigu ka eegay waa afarta marka waxaan ku weydiinayaa Turkigu anigu waxyaabahan soo ogaaday waxa kamid ah waddanka Turkigu inaanu ahayn waddankii ku habboonaa ee Somaliland iyo Soomaaliya inuu wada hadashiyo maadaama oo uu Soomaaliya iyo Somaliland waxa uu geliyay Soomaaliya badan tahay wuxuu ku leeyahay militariga saldhigga militariga ee Afrika ugu weyn wuxuuna ku leeyahay safaaradda adduunyada ugu weyn ayuu ku leeyahay Soomaaliya waa marka Somaliland waxba kuma leh wuxuu ku leeyahay meel yar oo halkeero la yiraahdo waxa weeye waa consulate waa qunsuliyad wax badan aan Somaliland u tarin waa marka labaad ee dadka aynu wada hadallada u dirsanay Somaliland anigoo sharfayo ixtiraamaya dadkii reer Somaliland ugu qumana inay yihiin haddana waxaan qabaa in lagu xulay qaab inay Somaliland iska wada dhex aragto oo beela laakiin aan lagu xulin aqoontii ay u lahaayeen wada hadallada iyo aqoontii ay u lahaayeen Turkiga iyo aqoontii ay u lahaayeen Soomaaliya iyo arrimaha inaan la tixgelin oo aanay arrimaha lagu xulin baan u arkaa waa marka saddexaad ee waxa weeye heshiisyadii Somaliland ee la wada galay ee Turkiga lagu galay hal mid ka soo qaato waxaad arki kartaa in lagu heshiiyay hawada markii lagu heshiiyay waddanka Turkigu isagii heshiisiyay baa dhagay in Soomaaliya ay noqoto meesha hawada laga maamulayo isagoo ku heshiisiyayna Somaliland noqoto meesha sidaas oo waddanka hawada laga maamuli doono Soomaaliya maadaama ay sidaa tahay waxaan ku weydiinayaa what is the way forward adigu maxaad u aragtaa arrimahan sidaad se uga hor imanaysaa sidaad si xal ugu doonaysaa waanad mahadsantahay waxaan ka baqayaa Dr. Adna inay u baahnaan doonto habeen dhan inay shirka ka hadasho waynoo qaybta su'aalaha dambe waynoo waxaan jecelahay inaad mid uga jawaabtaan laba su'aalood oo kaliya jiray baan malinayso wax su'aala asalaamu calaykum mar labaad horta aamine waxay sheegtay su'aal runtii relevant ama khusaysa wadciga dhaqaaleyna ku jiro trade deficitkeenu aaminay waxa weeye 700 milyan haddii la eego dhaqaalaha lacagta qaadka ay naga qabto 300 milyan aad ka dhigto 400 milyanna waxa weeye waxa la yaalo waxaynu soo import garayno hadday noqoto dry food iyo waxaan kale basic consumptionka cuntooyinka oo aynu beeran kari lahayn marka waxyaabaha la yaab kale ee challengeska ugu waaweynayna haysta waxa weeye waxa aynu soo import garaynaa waxyaaba ay ka mid yihiin tamaandhada maalin dhoweyd waxaan la kulmay toon la yidhi China laga keenaa yani waa waxyaabaha maanta aad ma garanaysaa waddan dhan oo arable oo dalagiisa la beeran karo marka annaga waxaa nooga qorshaysan runtii xagga hay-adda investmentka in aanu laba dhinacba aanu ka gallo arrintan midi waxa weeye public private partnership midna waxa weeye foreign investment to hoose horta financing bay u baahan tahay dadkan entrepreneurial weeyo waxyaabo badan bay la yimaadaan waxay loo design gareeyaan oo launch gareeyaan companiyo laakiinse markii dhaweyd waa tii ay Dr. Adna sheegtay meanskii iyo financingkii ma haystaan dhibka kale in haystaa waxa weeye baanankeenii baanan commercial ma haysano oo kale qolooyinka finance-ka baa ka hadli doona
adduunka waxaa jira xitaa bank of agriculture wax la yidhaah oo low interest rate intuu ku sameeyo dabeetana laga amaahdo lacagtoo dabeetana agricultural development waxyaabaha basiga oo dhan ay markaa farmersku ay beertaan marka anigu waxa weeye ta ugu muhiimsane waxa weeye strategiga iyagu in aanu labadaaba xoojinno private public partnership oo ah in la helo capacity building in kor loo qaado ciddii maal gashanaysa in la beero waxyaabaha ugu muhiimsan ee lacagta intaa leeg ee importka ay nagaga baxayso foreign investorskuna agricultureka noogu jiraa oo investors badan baan soo approach gareeyey oo diyaar u ah in ay light industry keenaan waxaan u maleynayaa badnax walaal inay ku filan tahay jawaab waxaan ka xumahay ma doonayo oo keliya inaan culayska dadka saara laakiin waqtigeenu haysanaa waa cidhiidhi marka waxaan idinka codsanayaa tiimkiina kale laba daqiiqo inayd inugu jawaabtaan oo toos aarad uga jawaabtaan dr adnaa iyo maxamed isku jawaabtaan arrinkii rooble waad mahadsantahay waxaan u jawaabayaa su-aashii ee ku saabsanayd wada hadallada dabcan wada tashi baa lagu wada hadli doonaa turkigu inaanu dhexdhexaad ahayn way caddahay turki la isla tegi maayo waxaa la isla tegi doonaa dalal badan ayaa nagu marti qaaday in haddii loo baahdo ay iyagu gogol u fidin doonaan ay diyaar u yihiin waxaa ka mid a dalal baa inoo marti ayaa inoo fidiyey gogoloo yidhi haddaad u baahataan diyaar baanu diinnahay laakiinse waxay taas ku xidhnaanaysaa marka la ogaado bal cidda aan la hadlayo somaliland envogeedii waan ahay laakiin sida qofka aan la hadlayaa waa kee waa qof ma halkuu joogaa goormaan wada hadallaa qorshe maxaa inoo yaallaa xaggee laynagu wada hadal siinayaa waxaasuna wax samada weli ku laalan waxay noqonaysaa wada hadalladu waxay noqonayaan wada hadallo qorshe leh oo haddii ay noqoto talo laga qaatay ciddii hore ula socotay wada hadalladii talo laga qaatay ciddii garyaqaanada ama sharci yaqaanada talo laga qaatay dad aqoon dheer u leh heshiisyada caalamka oo professional negotiators ah ama professional diplomats ah waxay noqonaysaa wada hadal ka dhasha wixii ka soo go'a somaliland ee xukuumadda somaliland ay u dhigato priority ka dhigato in heshiisyadaas lagu daro marka diyaar baanu u nahay waxaanu rabnaa wixii somaliland u dana ayaa soomaaliya u dana soomaaliya 27 sannadood ayay degi lahayd somaliland waxay ahayd nabad soomaaliya way qasnayd iyagay dan u tahay in la wada hadlo iyagaa u baahan nabad iyagaa u baahan inaanu noqono laba daloo walaalaa oo wax isla qabta oo jaara oo is-ixtiraama markaa somaliland niyad wanaagsan bay u gelaysaa wada hadalladaas laakiin somaliland marnaba qadiyadeeda midnimo somaliland waa non negotiable qaar sayladda la geynayo oo la iibinayo maaha gooniisutaagga somaliland waa muqadas aad baad mahadsantahay maxamed su-aashii rooble flash really flash yes ha runtii su-aasha rooble aad bay muhiim u tahay waayo marka imika xilliyadan dambe adduunyada waxaa laga hadlaya waxa loo yaqaano human security oo markaa noqonaya maanaa qofka in laga hadlo waxaa la iska daynaya waddanka communityga bulshada waxaasoo dhan waa lasoo dhaafay individualka ayaa laga hadlaya waxaa jira waxa loo yaqaano 2063 oo loo yaqaano african agenda oo lagu talagalay wadamada africa labada kun iyo saddex iyo lixdanka waa kulli waqti aad u dheer inay ka baxaan macnaha fakri ama dhibaatooyin fara badan oo haysta waxaa kale jira waxa loo yaqaano aad wada ogtihiin SDG ama waxa loo yaqaano sustainable development marka kuwaasoo dhan iyo marka laga hadlayo human security-ga oo isaguna theory gaar ah waxay aad u xoogga u saarayaan qofka shakhsiga macnaha inuu helo biyo caafimaad nabadgelyo hooy marka runtii xaggii marka hore la generalize gareyn jiray la odhan jiray
macnaha somaliland oo kale laga hadlayo waxaa laga hadlaya imanka individual qofkii in loo daadego marka waxaa filaya dee kolley taa maalin baynu gaari doonaa in qof kastoo muwaadin oo reer somaliland uu helo waxyaabaha runtii security-ga ah ee dhinacyada kala duwan ee uu runtii u baahan yahay aad buu mahadsan yahay maxamed wuu inoo sharxay laakiin anagu wuxuun baan u turjumi lahaa ha roblow waa mid 4 milyan bay wada leeyihiin jawaabtaasaa toos ilaa baan malaynayaa sharxii dheeraanu bixinay waa isku raacsanahay soo maaha in 4 milyan ay ka wada yeelato somaliland aad iyo aad baa mahadsan tihiin ila sii dhaweeya